gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa xilalkii uu kala wareejiyay gudoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolka Hiiraan ee arrimaha siyaasadda iyo gudoomiye ku-xigeenka cusub ee arrimaha siyaasadda iyo maaliyadda ee dhawaan loo soo magacaabay gobolkaas. warkan waxay noo soo diray wariyahayaga Khalid Maxamed Ismaan Ilkaase. munaasabadan xilalka ay kula wareegayeen gudoomiye xigeenka hore ee siyaasadda gobolka Hiiraan ee xilka laga qaaday gudoomiye xigeenka cusub ee siyaasadda iyo maaliyadda gobolka Hiiraan loo soo magacaabay gudoomiye hore ee degmada Beledweyne ee xilka laga qaaday iyo sidoo kale gudoomiyaha cusub ee degmada Beledweyne loo soo magacaabay ee lagu qabtay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxa goobjoog ka ah oo ka soo qayb galay dhammaan mas'uuliyiinta maamulka heer gobol iyo degmo saraakiisha kala duwan ee ciidamada xoogga dalka iyo kuwa AMISOM xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka Hiirshabelle dhalinyarada haweenka siyaasiyiin odayaal dhaqameed iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka. ugu horeyn waxaa goobta hadallo kooban oo u badnaa sagootin xubnaha xilka wareejiyay iyo dardaaran loo jeediyay kuwa cusub ee xilalka la wareegay ayaa waxaa madasha si wada jir ah uga soo jeediyay maayarka magaalada Beledweyne saraakiil ciidan odayaal dhaqameed xildhibaano ka tirsan Hiirshabelle iyo marti sharaf kale. qof xil laga qaado oo warka aqbalo kii la soo magacaabana hore u shaqadiisa sii wadayo kalena ku sii wareejiyo waa nidaam macnaha dowladnimada tilmaama waana calaamad cad waay waana soo dhaweynaynaa runtii waa soo dhaweynaynaa waa ku qasbanahay mar walba inaan soo dhaweyno wixii jiro waxaan rabnaa haddii wax ku hagaagayeen inaan la soo dhaweeyo gudoomiye dabageedna waa ku ammaanaynaa runtii xubintii dhalinyarada aan ku lahayn oo noo ilaaliyay waxaan ka codsanayaa odayaasha gaar ahaan duqeyda nabadoonnada waxaan ka codsanayaa wiil al-shabaab marka la soo qabto kadaba imashada ay kadaba imanayaan intervention loo sameynayaan والشباب وأي هدو قطابشلو تضرب ورمال سمينا شباب هالكا وبتر يوم مطر لكن انت حتى لك انه دي بلو سو علي يعني فرصه يران سينين قدومي كحيجانك gobolka waa cusub waa nin dhalinyaro horena waa u soo mariyay meesha waxaan ku leeyahay hal qodob aan ku leeyahay horena waa u yiri labada buundo ama buundadan ha dhaafto maamulku ha dhaafo maamulka Hiirshabelle ha dhaafo halkaas iyo maamulka gobolka Hiiraan saasaan leeyahay inaad reer hebel iyo reer hebel u kala joogtaan wax shaqeeya maaha waxaad moodaa xilalka Hiirshabelle waxay noqdeen gaar ahaan Hiiraan sidii tusbax furto oo kale iska socda annaga runtii haddaan xildhibaanada raalli kama nihin mar kastoo xilka la bedelo waana dhibaa in gobolkii Hiiraan oo xildhibaanadii ku matalaya Hiirshabelle aan nahay in sidii daawad TV dadka loo siiyo oo 6 bilood kasta inta nin dakana la geliyo dan raacdeeyo runtii waxaan raalli ka nahay maaha waa inaan dhigtaa xelalka wareejiyay aad iyo aad waxaan codsanayaa gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda iyo maaliyadda iyo gudoomiyaha degmada inay shaqada meeshii ay ka bilaabaan si wanaagsan u sii wada doonaan. sidoo kale waxaa goobta hadallo kooban si wada jir ah uga soo jeediyay gudoomiyaha hore ee degmada Beledweyne Maxamed Ismaan Cabdi Qalaafo gudoomiyaha cusub ee degmada Beledweyne loo soo magacaabay Maxamed Axmed Ibrahim Food Cade gudoomiye xigeenka hore ee siyaasadda gobolka Hiiraan ee xilka laga qaaday Xasan Ibrahim Cabdulle iyo sidoo kale gudoomiye xigeenka cusub ee siyaasadda iyo maaliyadda gobolka Hiiraan loo soo magacaabay Mudane Maslax Maxamed Cismaan ayadoo midka kale oo ku wareejiyay xilkii uu hayay bulshada gudoomiyaha cusub ee loo soo magacaabay. بسم الله waxaan rabaa inaan gudoomiyaha cusub soo dhaweeyo insha Allah ta'ala gudoomiye waa xilkii aan hore u hayay in sii wado shacabkana naxariistooda iyo turkooda ay sii wado ku soo dhawow xafiiskii degmada Beledweyne ee caasimadda gobolka Hiiraan ku soo dhawow insha Allah ta'ala xafiiska markaa tagnana dukumiintiga iyo shaqaalihii iyo wixii kale ku sii wareejin doonaan billahi kariim soo dhawaad salaam halkan ugu cusub sax xilka iskaga soo noqo waxba ma tarto maalin walba in lagu soo celiyo wax ma tarteen wax la qabtaa waxa loo baahan yahay maamulka in heer gobol iyo heer degmana isugu geeyo dib u heshiin haday tahay iyo horu dhaqaajinta maamulka xafladan maanta waa xil wareejin maamulkii hore iyo maamulka cusub dabcan dadku waxay dhaheen in qof xil laga qaado qofna loo dhiibo waa dowladnimo aniga dabcan ma aaminsan qof xil laga qaado xilna loo dhiibo inay dowladnimo tahay dowladnimadu waxa waa qofka la dhaw shaqeyn waa xilka laga qaado waxaan rabaa inaan haddana ku soo dhaweeyo walaalkay Maslax Maxamed Ismaan oo ah saaxiibkii qaaliga ah gudoomiye ku-xigeenka cusub ee gobolka Hiiraan maaliyadda iyo siyaasadda sidoo kale soo dhaweeyo saaxiibkay Maslax welcome ku soo dhaweeyo
soo dhaweynaa anoo maanta lay magacaabay bidix laga qaado aadaan soo dhaweynaa sababtoo ah dimuqraadiyadda ku jirto qofka isbedelka dimuqraadiyadda ku jirto marka waxaan noqon doonaa dadka xilka la iga bedelay mid la shaqeeyo mid soo dhaweeyo mid farxad geliyo mid inuu ka maarmo mashquulkii iyo biisigii ku qabay kursiga hadduu joogo marka waxaan jeclaan lahaa saaxiibadayna in layla sagootiyo xitaa xaflada soo dhaweyn sagootin aan u sameyno gudoomiyaha gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Hirshabelle Mudane Yuusuf Axmed Xagar Yuusuf Dabageed oo xafladda soo xiray ayaa hadalla sagootin gudoomiyaashii xilalka laga qaaday iyo soo dhaweyn mas'uuliyiinta xilalka la wareegay halkaasi ka soo jeediyay annagu waxaan qaban doonaa waxaan karno waxaan qaban doonaa wixii la qabto waxa la qabtaa dadka waxa loo qabtaa waa sax ilaahu adaa marqaati noo ah urkaayni afkaaynu hadday iswaafaqsiin hadday kala bedeliin adaa og magac Hiiraan oo wanaagsan oo horumar bisa ka rabnaa aniga meesha garuubkayguna waa ku madaysnaa doonaan u malayna kii hadda midnimadaas diido in reer Hiiraan ay mid noqdaan oo Hiiraannimo iyo Hiiraan mid ay Hiiraan horumar iyo Hiiraan hal guri ah ay Hiiraan waxay kala leeyihiin loo kala waardiyo waxa ka dhaxayaan u siman kii ka shaqeey waan hore loo sheegay hadda loo ku celinayaa maamulka aniga aan madax u ahay waa diyaarada waa Hiiraan nimanka saaxiibada xilka laga qaaday waa suguubtinaynaa waxaan u maamuusaynaa dad xil laga qaaday sida loo maamuusay sida ugu qurux badan Khalid Maxamed Ismaaciil Kacse telefishinka caalamiga Soomaaliyeed Beledwey